فلا جواد كير بنا بركة هذا جلسة صارع نوني أو صارع عاير لولا يوانا صور من دوقة دادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان إدين سلامية دمان شعبوينها كسو قيب قلي مانتا سودوينتي ده هالكن ليجو سميه فنانينتا أبوانينتا محنقول ورياشة تيفية دلنيرة أصحابتا حاجة جيجا دمان وحنا ذي الله واد محدثنتهين Soomaalidu waxay tiraahdaa niman dad lahayni waa niman dal lahayn dad idinkan dad magac idin ku leeyahay idinka halka ay gaarsiiyay idinka la'aantiin halkana maanta ma joogeen Safiya Tusmana ma ahaadeen gurmadka adiga gashin 2021 ma ilaawi karo anigu ma ahi marti deegaankan u dhashay dambal baan ku dhashay deegaan maxaan ku dhadaa degmada dambal waa wadankaygii waa caasimadeydii reer Soomaali galbeed baan ka tirsanahay gobolkayga weeyaan magaaladaydii weeyaan ma yihiin maaragtay qof meel kale timid oo lagu soo dhaweeyay wadankayga baa lagu soo dhaweeyay aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa thank you marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed cidii muuqayga iyo maqalkayga taqaana anigoo magacayga iyo magaca fanaanada Soomaaliyeed ku hadlaya ee waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo walaashay Safiya Tusma iyo saygeeda Cabdullaahi waana ku faraxsanahay inay maanta jijiga maadaan waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqdaan qoys noloshooda isku dhameeysta waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka kaleey salaatu wasalaam barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair soo dhawaada lillahi bismillah hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan horta waxaan ku sugannahay garoonka diyaaraduhu ka haadaan ama ay soo caga dhigtaan ee Garaad Wiilwaal ee caasimadda looga arimiyo deegaanka Soomaaliyeed ee magaalada Jigjiga waxaan maanta laba soo dhaweynood oo halkan ka qabsoomay ayaan idin la socodsiinaya sida idin muuqata waxaan halkan ku soo dhaweynay fanaanadeena qaaliga ee Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee sharafta badan Safiya Yoonis Safiya Tusmo oo aan idinku cusbayn magaceeda iyo muuqaalkeeduba oo ay soo dhaweeyeen ugu horeyn bahda waa dhinacayagii marka dhinacaas bahda fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka ee deegaanka Soomaalida qayb kamida waliba qaybtiida iyo dhaqanka oo ah qaybta ugu wanaagsan ee laga dheehdo Soomaalinimada iyo caadadooda laguna maamuuso munaasabadaha qaaliga ee sidan oo kala soo dhaweynta kalena waa soo dhaweyntii ay ku kulmeen toddobaadkan sayidna la wada soconay Safiya Tusmo iyo saygeedu waxa meherkoodu ka dhacay caasimadda gobolka Awdal ee Boorama halkaasi oo baraha bulshada si wanaagsan aad uga socoteen in Safiya Tusmo hidaha iyo dhaqanka qiimaha ugu sareeya oo wali lagu arag inta ku hadasha afka Soomaaliga ee ama una saf sheegata Soomaalida meherkii ugu qaalisanaa adduunka ka dhaca ayaa u qabsoomay iyadii saygeeda oo garab taagan nasiib wanaagna ku soo dhaweeyay magaalada Jigjiga sidoo kale
asxaabta ehelada qaraabada iyo mataqaanaa dhammaan inta nasiibka u yeelatay ee ka soo qayb gashay oo halkani qabanqaabadeeda iskugu timiday oo qaybo ugu badan ay waliba ka yimaadeen magaalada Boorama Somaliland oo ay ka mid tahay waayo bas Soomaaliya jigjigu ku taasoo ma jigjigu ma ku tahay sidoo baa imada deela cid kale ma imada anigu ba hebla kaliya ma oranayo laakiin dad ka mid ah ka soo qayb galaan ceeb maaha waa laga jaray waayahay marka dadkii caasimadda ku noolaa deegaanka Soomaalida intii nasiibka iyo hoodadaba u yeelatay ayaa ka soo qayb gashay nasiib wanaag waxa kale oo ah inay Safiya Tusmo iyo saygeeda Cabdilaahi Yuusuf ay ku kulmeen caasimadda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waa arin cajiib mar kale bal hambaliyada iyo sacabkiina ay maqashiya munaasabadu ma aha arooskii laakiin waxay noqotay fantasiyihii iyo dalbaadagii qaybtii hordhaca ahayd la isma gaadhin waxaan ilaahay ka baryaynaa dhammaanteen iyo in kaloo fara badanba inay ka qayb gali doonaan munaasabadaha iska soo daba dhacaya waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay gabdho iyo wiilal halkan saxaafadda madaxa bannaan ee deegaanka ku sugan iyo cid kasta warbaahin intii ka soo qayb gashay iyaguna inagula sugan boqorkiiyo boqorada horta waa ilmaabtay taana ku darsada qorshaha habre wadaagood ayaa isaguna halkan Fuad wad garanaysaan wiilkan quruxda badan leh Fuad aniguna abtibaan u ahay Fuad Alamire aniga laftigaygu family baan ahay Cabdilaahi Yuusuf iyo Safiyaba kolka laga yimaado tafanka iyo takale guudba laga yimaado marka dhammaan inta qaraabada iyo ehelada iyo dhammaan inteen oo dhanba aad baad u mahadsantiin ka soo qaybgalkiinu waa mid wanaagsan oo muhiima Safiyana waxaan leenahay iyo Cabdilaahiba ku soo dhawaada soo dhaweyntan quruxda badan ee leedin hibeeyay lama iloobi karo saxaafadii deegaankuna caashiya bay nagala jooga aad iyo aad mar kale bal sacabkiiyo hambaliyada ay maqashiya بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Roode Cabdiraxmaan Ismaan Roode halgan waxaan ahay dhalinyarada deegaanka ee magaalada Jigjiga ku nool hadana maanta u dalbaadagaysa soo dhaweynta Safiya iyo saygeega Cabdilaahi lamaanaha qarniga ahna iskeelka jabiyay hadaan si kaftama nagimka rag waxaan ku war balboos baan ku dhinaad 200 keenta mooyaan qiimo talacay marka Safiya waxaan leeyahay welcome Jigjiga waa magaaladaadii qalbi furan gacmo furan anagoo ku hadlay afkii gabdhaheena Jigjiga oo kugu soo dhaweynaa gacmo furan marka waxaan leeyahay yar baan leeyahay waxaan leeyahay garbaayigu tahay inaan maanta gaadiya oo gaf wareegayo garba sarka meel dhigta ninkiiga garab hadla maanta iga gardaraan habli samaroon siciida bintida lahaa boqorayo waxay dhalaan wiila laga baqa ninkaase boqol geelayo barqabkiisii wadi buntuuqa noo dhiibin hablaha iyaga ma baayacaan markii xafladda hadalay sheegay Safiyay maysa soo gaanay sidii geed xaraara qaba malayga wada gabaday sidii galarkii cadda haddana ku gabaya tirin garigu ogow markii xafladda hadalay sheegay dheemanay gorgorka gabayada tirsha garbahayga degay sidii goodi iyo abees baan galgalanayaa sidii gaabano libaax baan u gaarayaa haddana gool waxaan ka dhalin garigu ogow waan soo gaabinaya waxaan leeyahay caruuskana wargeesi oo geesi dhalay wargeesi oo waabaha looma garami jirin gartuugooyana gidaar looma eegi jirin hablaatii quruxsan buu ka dhex qaadan jiray war cabdi oo wadna gadiiban ka rabnaa
الله إني بركة يا الله إني بركة ويلي عانو وعن لا قرينا لقد اعتريه وسواس كالقعيل كواقل قرم يحبذا كدوسان نقضي إلى ديرك